بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhda ku beegan tahay 7 June 2022 maalin talaadana ay tahay waxa xarunta aqalka dawladda hoose xamar ee shir balaaran ku yeeshay guddoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamed Umar Filish iyo dhammaan saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala gedisan ee isugu jira booliska nabad sugidda iyo qaybaha kale ee amniga ka shaqeeya sidoo kale waxa shirka goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaasha qaybaha ee booliska gobolka Banaadir ee nabad sugidda iyo booliska iyo waliba baarista shirkan ayaa waxa uu ku qatamnaa maadaama magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ay ka dhacday doorashooyinkii heer federaal isla markaana la doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud maalmaha soo socotana loo diyaar garoobayo caleemasaarka madaxweynaha in loo diyaar garoobo soo dhaweynta wufuudda kala gedisan ee heer caalami ah ee soo gaaraya magaalada Muqdisho kuwaas oo ka qayb galaya munaasabada caleemasaarka madaxweynaha sidoo kale ee loo diyaar garoobo sugidda amniga guud ee caasimadda magaalada Muqdisho maadaama maalmaha ama saacadaha soo socda ee 48 saacadood ah ay wax weyn u tahay dawladnimada iyo dadnimadeena Soomaaliyeed ayna sawir guud ka bixinayso sida Soomaaliya ay tahay sida daraadeedna maanta lagu gurfayay shirkani in maalinta soo socota ee ku beegan sagaalka la filayo in caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka dhaco dalka Soomaaliya amniga caasimadda iyo bilicdeedaba uu yahay mid ka sareysa sidii hore loogu bartay isla markaana caalamka wufuudooda ka kala socotay imaanaysa magaalada Muqdisho ay ka qaataan sawir ah in Soomaaliya aysan ahayn sida ay warbaahinada qaarkood ay u faafiyaan sida daraadeed shirka waxa sidoo kale fariin loogu diray shacabka qaybahooda kala gedisan ee ku dhaqan ee gobolka Banaadir in maalmaha soo socda oo culeysyo amni imaan doona ay sidoo kale muujiyaan dulqaad ku saleysan haddii ay arkaan culeysyo amni inay u dulqaataan maadaama maalinta sagaalka bisha maalinta Khamiista ee magaalada Muqdisho ay ka dhici doonto caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale shacabka ku dhaqan caasimadda Muqdisho ee gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa inay wada shaqeyn dhow ee la yeeshaan laamaha amniga qaybahooda kala gedisan ee sugaya amniga guud ee caasimadda magaalada Muqdisho sidoo kale maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee amniga ka shaqeynaya waxa ay diyaarin doonaan wixii tasiilaad ah ay u baahan yihiin shacabka haddii ay noqon lahayd gawaari ay gurmad ugu sameyn karaan shacabka haddii ay wax soo wajahaan iyo dadka baahiyaha gaarka qaba haddii ay wax u baahdaan intaba shacabkana waxaan mar kale ka codsanaynaa in culeysyada amni ay dhici doona 48 saac ee soo socota ay dulqaad u muujiyaan maadaama maalinta sagaalka bisha ee maalinta Khamiista ah munaasabada dhici doonta ay tahay munaasabad muujinaysa sida Soomaaliya ay tahay muhiimna u ah dawladnimadeena dalka Soomaaliya mar kale waxaanu shacabka ku wargelinaynaa in 48 saac ee soo socota ee gaar ahaan maalinta Khamiista culeysyada amni ee imaan doona ay dulqaad u muujiyaan anagoo og in shacabkan gobolka Banaadir ee dulqaadyo fara badan soo muujiyeen culeysyo badan oo dhanka amniga ay la soo kulmeen mararka qaarkood ay dhacdo in wadooyinka caasimadda la xiro iyadoo la sugayo amniga maadaama caasimad ay tahay wufuud heer caalami ah oo kala gedisan oo heer madaxweynayaal ay soo gaarayaan magaalada Muqdisho maalintaas ay ka gedisnaan doonto sida amniga loo sugayo sida daraadeedna ay bulshada muujiyaan adkaysi iyo dulqaad idinkoo mahadsan